السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا ورئيسي عنو لا يلاني وسيركا arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Cali Waran Cadde mudane kusoo dhawow telefishinka Somali Channel magacaygu waa Cabdikariin Cali Kaar. aad baad maasantay adiga mudane waxaad nooga warantaa mudane safarkay aad halkan ku timaadeen Yurub guud ahaan iyo England gaar ahaan adiga iyo wasiiradii kugu weheliyay muxuu ku saabsanaa kulankaas safarka bismillaahir rahmaanir rahiim sida la socotaan wadanka Ingiriiska wuxuu ahaa maxkamiyadii Somaliland protectorate-ka ilaalin jirtay waqtiyadii gumaysiga Afrika la gumaystay runtii dawladda Ingiriiska Somaliland way ka duwaneed iyo mustacmaradii kale caalamku sida Afrika u gumaysteen Somaliland waxa la oran jiray British Somaliland Protectorate marka Ingiriiska dhanimo gumaysaanaga waxaan lahayn iskaashi iyo isgarabsi baan lahayn iska garabsano waqtiyadii barigaadii dagaaladii caalamka ka jiray marka runtii waxa naga dhaxay cilaaqaad fiican oo aad iyo aad u fara badan oo gentleman agreement ah cilaaqaadkaas wuxuu keenay runtii isbarasho qiimo leh oo qadarin leh inaan yeelano muddada dheer ilaa awooyaashiyo imkana waad la socotaa Somaliland maadaama ay noqotay Somaliland dawlad gooni u gooday wadamada runtii aan Yurub isugu dhowdhownahay de kana warhaya qadiyadayada waa nimankii aan ka qaadanay xorriyadda ogaa inaan muxuu ahay dal gaar ah 1960kii 26 June ahayn marka cilaaqaadkay runtii aad buu wanaagsan yahay marka inay aan sii horumarino wixii aan wada qabsan karana aan ka wada hadlanayo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka macdanta ayaan ahayn marka runtii si wanaagsan baa inoogu dhaceen kulanadii aan galay okay marka safarku khaas ahaan adiga sheegay guud ahaan in Ingiriiska xiriir qoto dheer uu kala dhaxeeyay Somaliland oo dad safarku muxuu ku saabsanaa runtii dawladda Soomaaliya waa dawlad dhismaysa haday tahay xagga militariga haday tahay xagga nidaamka haday tahay xagga shaqada booliska marka arrimahaasaan inay naga caawiyaan oo imika runtii ay naga caawiyaan oo mahad celinayno ayaa ugu badnaa waxyaabihii aanu kala hadalay sidii nabadgelyada guud ee isaga kaashan lahaa sidii muxuu ahaayay dalkan waa dal kheyraadkiisu aad iyo aad u badan yahay Somaliland runtii aan ficina doona ummadda af Soomaaliya ku hadasho dhan sidaan qabno waayo meelaha la leeyahay lama jeeranayo leeyahay shidaalka ugu badan wuxuu ku jiraa waa dhulka Ingiriiska gumaysan jiray sida awgeed hadii ay deynoo suura gasho inuu soo baxo waxay noqon doontaa mid Somaliland u leh barwaaqo iyo bashbash dadka af Soomaaliya ku hadlana runtii waxtar weyn maadaama markaa shidaalkii aad afka ku dhafatay mudane waxaa jira xogo oranaya in aad la kulmayseen shirkadihii shidaalka ka baarayay Somaliland oo dhawaan ka soo tagay Somaliland arinta iyada bal ka waran way jiraan shirkado waan ka wada hadalay meel wanaagsan oo noo marayaan waxaan la sheegay runtii wadankan inuu yahay wadan qaniya shidaalku qaniya adduunyada maanta waa ogtahay recession baa ka dhacay iyo dhaqaale xumo iyo waxyaabo badan marka waqtiyadii loo baahnaa bay runtii ku soo hagaagtay marka rajo fara badan baa laga qabaa dalka okay maadaama shirkaduhu ay amaan dari uga soo tageen oo meelihii laga baarayay shidaalka beelo kala sheegteen sidee hadda suurtagal ku noqonaysaa inaad ku celisaan halkii run ahaantii markii hore si yaro kadisa bay arrintu u gashay dadka runtii waxay u baahan dadkan wax loo sheego laga dhaadhiciyo dadka runtii waa dad ismaqlo oo dawladnimada iyo nidaamka ku wanaagsan waanu galay xataa markii dambe in muxuu ahay dadka laftiisa loo sheego waxa loo socdana waxa weeyaan dalka nimcada Ilaahay hoostiisa geliyay oo Ilaahay ugu mahadnaqano Ilaahay noo soo saaro waad aragtay wadamadii muxuu ahay caalamka ee mushaarka intaan shidaal ku soo bixin sidii ahaayeen qaarkood waxay barbari waxay u ahaan jirtay lifeline ay muxuu ahay raashinka iyo ka helaan hilibka iyo xaydha maantana halka la marayo waad ogtahay because waxa weeye nimcada Ilaahay u soo saaray marka Somaliland iyadoo markeeda hore ladnayd haddana hadii uu shidaalku soo baxo dadkeedu wuxuu gaari doonaa barwaaqo iyo bashbash
marka nin barwaaqada diidaya ma jirto laakiin waxay u baahan tahay dadka in maadaama amaan darri ay u soo noqotay mudan waxa ay muuqanaysaa inaad ka yara weecweecanayso maadaama amaan darri ay uga soo tageen shirkaduhu meesha arrintan kale ee odhanaysa in ciidan maxaan idhaahdaa calooshooda shaqaystayaal oo cad meesha la geeyo si ay xarumaha iyo goobaha oo shidaal baaristu ka socota ay u ilaaliyaan arrintaa bal ka waran iyada runtii calooshooda shaqaystayaasha iyo ciidamada cad meel baynu ka ognahay laakiin Soomaaliland way ka madax bannaanta marka ma dhici doonto mana dhacayso in la keeno ciidan khaas ah ay ilaaliyaan halkaa ciidan cad ama madow sida kuwa idinkeeda la joogo kale in Soomaaliland la keeno Soomaaliland iyada isku filan waxay leedahay rag difaaci kara dalkeedan waxay leedahay rag soo muxuu ahaa tababartay oo de taariikhdooda hayso marka anagu uma baahnin mid cad iyo mid saweyntoona waxaa tahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaad bal nooga sheekaysaa intaad wasiirka ahayd wixii aad qabatay runtii dee kulliba ninku hadduu mar wasiir yahay oo qarankiisa loo magacaabo waajibaadka saaran waxa weeye dadkiisa iyo dalkiisa wax u qabto oo dadaalo ilaahayna la qabto marka runtii waanu wadnaa wasaaraddu waa wasaarad ballaaran inaan wasaaradda ka dhigno wasaarad casri ah oo la jaan qaadi karta waqtigan casriga aynu ku jiro gaadiid tababar u diyaar garayn muxuu ahaayey ciidamada amniga oo kale inay gudan karaan kaalinta shacabkoodu ay uga baahan yahay inay u gutaan nabadgelyadooda iyo xasiloonida runtii si weyn baan u wadnaa insha allahu ilahina waxaan ka baryaynaa ilaahay noo fududeeyo waxa aad sheegtay oo dhani waa wax qurux badan laakiin maxaad qabateen oo arrintaa aad ku odhan kartaa waanu ku gaadhaynaa masalan imika waxaa jira waxaan kusoo kordhinay gaadiid fara badan oo gaadiidka 99 la yidhaahdo iyo isgaadhsiintooda oo imika yana noo socota gaadiidkaasu waa runtii gaadiid ku qalabaysan qalab casri ah oo aanu imika ku wadno oo masalan saamixi karaya ninka madaxda ah iyo ninka operationka fieldka ku jira baabuurta ragga ku jira inaanay marna kala libdhin oo halkaa waxa uu qabanayo iyo duty loo xilsaaray inuu gudanayo in kale xataa haddii uu ka baxo areada muxuu ahaay loogu talagalay uu waayo awooddii uu ku maamuli lahaa baabuurku diidayo inuu la macaamilo darawalka iyo cidda wadata oo waa qalab casri oo imika aanu ku wadno weeye marka runtii waxaa ka mid ah fardo ciidanka booliisku saaran yihiin oo imika ilaa 10 aanu diyaar garaynay ilaa aanu doonayno ilaa 20 iyo ilaa 30 aanu gaarsiino haddii la yidhaahdo ciidamada waxaan ugu talagalnay in dadku ay dareemaan in xataa meelaha yara luqluqyada ah ee aanay baabuurta 99 ku waaweyn geli karin inuu bulshada ag taagan yahay nin u heegana inuu nabadooda sugo meel baa u tago fardahaasi markaa magaalkii ka shaqeynayaan hargeysa goboladana markada waan ku baahin doonaa waxaa jirta arrin su-aashani ay dhalinaysa oo ku saabsan xukun daadejinta waa arrin dunida saddexaad oo dhan dhibaato ku ah khaasatan Soomaaliya iyo Somaliland lateedu waa arrimihii ay ka dagaalantay bay kamid ahayd in wax walba ay maxaan idhaahdaa xamar u tagi jireen imika waxaa muuqanaysa wixii xamar lagu hayn jiray in iyo hargeysa lagu hayo oo Somaliland oo idil ay hargeysa qura noqotay oo haday dhaqaale noqon lahayd iyo haday xoog iyo siyaasad kale noqon lahaydba maamulkii uu hargeysa uu ku egyahay arrintaa maxaad wax uga qaban weyseen horta waa markii koowaad reer Somaliland hargeysa xamar way ugu dhowdahay hargeysa u dhow talabaad saad sheegtay Afrikaanka waa runtaada magaalada caasimad Buurisa laakiin waxaan doonaynaa inaan ka bedelo aanu ku fidano maamulka iyo kheyraadka iyo technology-ga cusub gobolada iyo degmooyinka waana wadnaa imika masalan baabuurta 99 baabuurtii aan ugu talagalay gobolada intiimkaan soo maqnaa bay degdeg soo degeen marka dhammaan gobolada laamida leh haddii la yidhaahdo waanu gaarsiinaynaa laakiin Somaliland way 20 jirsatay 20 sanadood weeyaan inta imika nidaam ku jiro welina ma muuqato inaad xukun daadejinta wax ka qabateen oo xitaa barasaabiyada gobolada waxaa laga soo magacaabaa hargeysa arrintaa bal iyadana wax ku dar runtii de markii ay meesha aad naga tagteen waxba nooga midaan marka anigu nin wariye ah baan hayaad la hadlaysaa markaa adaan kula hadlay aniga wariyaha
oo meel baaba oo dee aan guri jirin jiingadii aa ka goosateen muxuu ahaayey dhulkii gidaardii dhulka dhigteen muxuu ahaayey adigu laakiin markaa nidaamkaad ka mid ahayd mudane adoo raalli ah horta markaa jiingada dhulka la dhigayo 1990 markii dagaalku dhacay xamar baad joogtay andhamey waxba runtii nooga midaan tegin si yar arxan darro kamaanu tegin nidaamkaad ka mid ahayd nooga midaan tegin horteedaan wato taydana waad weydiin doontaa markaa runtii waqti dheer bay nagu qaadatay inaanu dowladnimadii dib u dhisno inaanu guryihii dib u dhisno in maskaxdii dadkii la burburiyay aanu dib u dhisno inaanu ilowsiino dhibkii iyo dhibaatadii soo martay iyo ehelkooda ay jeclaayeen ee xaqdarada ku baxay marka taasaa dib noo yar riday mooyaane si xawli aan ku soconnaa imkase intii badan waan kasoo tallaabsanay in meel wanaagsan baan maanta marayna mudan waxaa jirta in dib u dhacyada maamulada intooda badan dhibaatada bay qabaan laakiin waxaad moodaa imika maamulka Somaliland inuu dib u dhac walba oo ku yimaada iyo howlyaridooda iyo maxaan idhaahdaa wax walba oo dee ay wax ka qaban waayaan inay marmarsiyo ka dhigtaan sida adigu aad imika marmarsiyo uga dhigatay nidaam 22 sano ka hor kamidna aad ahaan jirtay burburayna marka dadka Somaliland miyaanay intaa ka badan istaahilin in haddii wax la qabanayo si toos lagu qabto wixii la qaban waayana oo nidaamku qirto inay ka gaabiyaan horta runtii ma kamaan mid ahayn dowladda siyaad baran markii dagaaladu dhaceen laakiin hore waan ugu shaqayn jiray waan la yeeriyay shaqada because inaan waqooyi ka soo jeedo laakiin ma ahayn dowladdu ma shaqayn xawarisa waan joogay marka waa la yeeriyay shaqada Ariilan ahaa horta markaa kuma jirin laakiin dowladdii hore siyaad baran waan u shaqayn jiray meel fiican waan ka joogay ninka muxuu ahaayey taliixyeenka immigration ahaan jiray sirdoonkana waan ahaan jiray marka taada isku caaran maayo dowladda inay wada lahayn bay ahayd laakiin markii lana xumeeyey waanu ka go-nay isla markaana tan imikana waa sheegay wax jira xoolihi aynu wada lahayn waxba nagama siinin wixii dibadda noo yeelay waxba nagama siinin wixii guntiga islaamaha ku jiray baan ku dhisnay intana maantana alxamdulilah rabbil caalamiin deena tagtiin kala ma aqaan laakiin waa meel lama jeeranayo nabadeeda min daraf ilaa bari ilaa galbeed uma baahnid inaad go' qaadato uma baahnid inaad sahay qaadato uma baahnid inaad siyaad qaadato adiga oo shaarkaaga iyo suugalkaaga gashan baad gogol la helaysaa martigelin helaysaa amnina helaysaa marka wadanka halkaa waxaan kusoo gaarsiinay ilaahay mahaddiisa leh laakiin waa dadaal waa run laakiin mudane mar kale nabadgelyadu waa waxyaalaha aad ku marmarsootaan nabad waa wax basic waxa dee aasaaska ah oo qofku xaq u leeyahay marka inaad horumarkii ka gaabiseen inaad xukun daadajintii ka gaabiseen inaad maxaan idhaahdaa hawlo badan oo dadka reer Somaliland Soomaaliya inagu aan ka hadlayn ay xaq u leeyihiin intaad ka gaabiseen inaad ku marmarsootaan nabad baad haysataan iyo nidaamkii burburay baa iyo jingadihii qaatay miyaanay xadgudub dadka ku ahayn maaha horta waxa weeye dee ma qabo waxaan ka gaabanay jiraan maxaad qabateen waayo dee waxaan qabanay ma tagtay Somaliland weli waan tagay ma ku aragtay magaalooyin dhisan Hargeysa mooyaane meel kale oo dhisantay maan arag meel kale ma tagtay Gabiley Arabsiyo waqti hore dhowr sano ka hor hadda mar dambe ku noqon doontaa deelayna markaad ku noqotay soo aragto ee su'aasha kaaga jawaabay halka hore markay ay gaadhay Somaliland okay waxaa jiray gole dhawaan lagu dhawaaqay oo la magac baxay golaha samata bixinta Somaliland golaha dawladdu way diiday sababahay ku diiday bal wax nooga sheeg horta waan kuu sheegaya dadkay waa dad muxuu ahaay runtii isjecel weeye dad wada jira weeye waa dad dalkooda wada ilaashada weeye waa dad kasoo horjeeda wax kasta oo dhibaato u keeni kara way jireen rag mudakara oo reer Somaliland oo runtii qiimo badan dalkan ku leh oo jeclaystay in la isu yimaado oo shirqan la qabto waan ka wada hadalay inaan shirkaas maanta hadii bay ku roon yahay dhibka uu keeni karo waxyaabaha uu leeyahay iyagu qoladii markii hore waxay iskaga gudbiyeen axsaabta qaranka muxuu ahaay iminkaan wada hadal noo socdaa waan jecelahay inaan ka wada hadalno marka shirkaas insha Allah wuxuu ku dhamaan doonaa in axsaabta qaranka iyo dawladdu
ay axsaabta qaranku u soo jeediso dowladda wixii ay muxuu ahaay tabanayaan ama tala iyo tusaale ay hayaan oo dowladda iyo ay ka wada hadlaan axsaabta oo horeba sunno noo ahayd markastoo wax soo koran ama cidi wax tabataba in dowladda iyo cidda kale ee muxuu ahaay axsaabta markaa qaranka inay ka wada hadlaan marka insha Allah saasay ku dhamaanaysaa wax dhibaato ku jira golaha markii hore la sameynayay ragii siyaasiyiinta ay kamid ahaa oo Xasan Ciise uu kamid yahay oo Xasan Gurey uu kamid yahay oo Ibrahim Dhagaweyne uu kamid yahay oo Maxamed Xaashi Cilmi kamid yahay wada intaba aad wada garanayso in ay kamid ahaayeen ragii aasaaska iyo sida ay Soomaaliland sheegto halgankaba ka qayb qaatay maxaa diidaya inay dawladda kala hadlaan waxa dib u dhacaya ay jira waxa kale oo jiray 16 qodob ay hor dhigeen maxaa diidaya inay nimankaas maadaama ay wax garad iyo waayeel Soomaaliland ay yihiin inay dawladda kala hadlaan arinta idiba ma diidin looma diidi karo anigu ma aqaan asxaaban waliba nahay waan maalmo waan saragnaa maalmo waan wada sheekaysanaa wadaacada reer Soomaaliland dabadna waan wada hadalnaa waa kuwa ragga arkaysa qiimaha leh haddana taladii markii hore ay keeneen waxay ka doorbideen inay mana xagga isaga riixaan oo isaga riixeen qoladii ay riixeen imika wada hadalkiina noo soo waxa lagu tilmaamay riixidoodii inay sharci darro tahay waxa lagu tilmaamay in maxaan idhaahdaa ay qaswadaan waxa lagu tilmaamay inay xamar lacag kala yimaadeen oo ah inta badan waxa ay ku marmarsoodaan mujaahidiintu maxaa ma way yaqaanaan taasa waxay sababtay watay ka dagaalamay taasa waxay sababtay inay magac bedelaan oo ay madal u bedelaan madashiba hadana socon weysay oo khasab uga dhigtay inay mar kale xisbiyada horta waa ku sheegayaan niman baqa maaha nimanku laakiin waa niman dalkooda u tura marka baqa kuma wareejinay talay ku heleen inay cid kale uga faradhow ama ay maadaama imika asxaabta lagu wareejiyay asxaabta maxaa u diidan iyagana maxaa diidaya in asxaabta shirka ay ku baaqeen la dhageysto waxa weeye runtii nidaam baa jira meesha hay'adaha qarankana waxay kala leeyihiin shaqooyin bay kala leeyihiin nidaam bay kala leeyihiin marka cid baa u xil saaran wixii heer qaran markay tahay maamulideeda marka iyaga laftoodu talada waxbay ku leeyihiin marka laba mid labada way u banaan tahay inay shir xisbi qabtaan oo haday sheegayaan wax sheegaan oo ka cawdaan oo sheegaan oo tilmaamaan talabaadna sida diinteena oo qorshahay mar hadaan nahay dad wax wada oo isku ujeeda kursiga tartankiisa waa wax gaar ah oo maalin baan ku fursan ninkii Ilaahay qoray baa imanaya marka waxa weeyaan annagu inaanu axsaabtii platform kale leeyihiin oo furan inay dawladda soo fadhiistaan noo soo fadhiistay dawladda tabana waanu soo fadhiisanaynaa wixii ay tala iyo tusaale iyo cabashayeen baan ka dhageysanaa miiska dushiisaan xaraf bixaraf ayaan u saxaynaa sidii hore u dhici jirtay arinta axsaabta wasiirka wacyigelinta Cabdullaahi Maxamed Daahir Xukuse waxa jirtay shir jaraa'id mar dhaxdaas qabtay oo waan kood garanay hadalkiisa baan ku sheegay wuxuu yiri shir la isku wareejiyay oo socda oo aan ognahay ma jiro waa shirkii lagu wareejiyay asxaabta wuxuu yiri xisbiyada mucaaradkuna ma shiraan oo shirweyne ma qabtaan way tartamaan oo tartanka siyaasadda ay ka qayb galaan hadalkaas miyaanu dimuqraadiyadda aflagaada ku ahayn ma lika sharci qof bay awood buu leeyahay axsaabtu waxay leeyihiin shir xisbi demonstration bay sameyn karaan shir bay sameyn karaan way hadli karaan yani xad buu leeyahay waasac ahoo dastuurka u baneeyo cid kaga hor iman karaysa walaa dawlad walaa qeyr aanu jirin laakiin qolo waliba xaydaan bay leedahay xaydaankeeda cidii dhaafta ayuu baraahdan waad ka baxday dib u yar noqo wax eebo kale ma jiro laakiin shirka way gartaan way ku noqdaan shirka waxyaalaha ay iclaamiyeen in looga wada hadlo waxa kamid ah doorashooyinkii imika dhawaa maxaan dhahdaa sidii loo geli lahaa doorashadii hore cabashooyin badan baa jiray tadamba sidii loo hagaajin lahaa tadamba sidii maadaama iyaguna ay ka qayb galayaan waan ogol lahay hadna ay ku leeyihiin waxay yiraahdaan doorashada sidii looga tashan lahaa waxay yiraahdaan golaha guurtidu imika odaynimo iyo magac iyo maamuus iyo waxba lagu tagaa in maxaan dhahdaa isaga laftiisa mustaqbalkiisa Soomaaliland ka wada hadasho waa sax weey xaq baan u leeyihiin waa xisbiya qaran shaqalayda iyo tahriibka oo aad u batay waxa jirtay report UN ay soo saareen oo oranaya Soomaaliya guud ahaan ka soo saareen Soomaaliland waa kamid reportka inta uu ka fargalay waxa la yiri 70 iyo in ka badan ba boqolkii dadka
dhulkaa ku nooli waxay u badan yihiin in 30 sano ka yar dadkaasi waa dadkii hana qaaday waqtigii dagaalada intay Somaliland jirtay waa dad aan hubo in badan oo kamid ah inay xiriir qaxootiga ku dhasheen ama ay ku koreen dadkaasi maanta inay shaqali hargeysa ugu dhaxgaajoodaan ama ay badda isku tuuraan xisbiyadii ay doorteen marka ay shir idin iclaamiyaan dawladdu diido miyani halgankii iyo dagaalkii Somaliland madax banaanida u gashay aflagaada ku noqonay maya waxa weeyaan dadka aan nolosha u raadinayna waa dadka aan doonayno inaanu tacwiid ilaahay baa bixin karaa aanu ka tacwiidsiino ee aanu ka dhaqdhaqno dhibaatadii soo martay la noo geystay waa dadka manay khasaarin runtii markay soo mareen oo ay dalkooda iyo xorriyadooda la soo noqday maanta ku naaloonaya talabaad intaasuba aad sheegtay waa sax lamana diidana laakiin habka ayuunbaa in sharciga nidaamka raacdo loo baahan yahay axsaabta waanu wada hadlaynaa waxaasaan ku wada hadlaynaa dabeedna shacabka wixii aan ku heshiino saasay usoo gudbaysaa iyo sida loo habeeyo talada iyo tusaalaan waxbay ku leeyihin axsaabtu iyo cid kastoo muwaadin ahoo qiimo lahoo haysa tala qiimo leh waanu ka dhegeysanaa marka haddii arrinku uu yahay hala murmo muranka anagu ma naqaan danu reer Somaliland dadka animka cabashooyinkooda ku sheegay mudane waa reer Somaliland waa xisbiyadii qaranka ee la ansixiyay yes xaq bay u leeyihiin Soomaad garan waxa kale ay sheegeen halkaas soo marno wadadaan soo marno wadadaan meel kale aan ka yarto waxa kale ay sheegeen waxa kamid ahaa waxay yiraahdeen waxa jira wada hadallo Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya oo imika socda waxaan ognahay kulamadii hore in xisbiyada mucaaradka talada wax laga galiyay وعبدالرحمن عرّي وفيصل علي ورابي وأي تجان شركة لكن شركة قدام بيه ولا غريبة وحيل هذه مدام وذا هذا اللذاني أي كوساب سيهن مستقبل كسومالي لان تلذنا أن وحكولنا هاي وحنا دوننا إن الدولة كلا هذا النوع وذا هذا اللذا سيدي أي سومالي لان وأباري لهي يجوا عن كانوا كقادم لين محد يديني هذا أخويا شان ما اللي ما بديدين حلو غريبة شركة سولة مريبين كيوت لكن وحويان marna tala la gaaro de qofun baa loo dhigay ama laba qof baa loo dhigay maaha in meel walba inuu ragis amsan baan nahay anigu wasiirka dakhliga hadii dawladdu tagto oo anigu aanan tagin haddaan yiraahdo maxaan iga leeyahay kaxin waay dhamuu tii karo laakiin dawladdaad kamid tahay ka warsaga qofka mucaaradka dawladdu kamid yahay laakiin talada marka hore meel baan wada dhiganaa waan wada hadalnaa waa la og yahay waxa laga hadlayo sida aad sheegtay horaba iyaga uga qayb galay iyaga afayeen u ahaa wafdiga dawladda ururada xisbiyada mucaaradka rag ka tirsan madax ah ayaa u hadlayay oo ka jawaabayay su'aalaha maalinta day wafdigu batana waa la gelin karaa maalintu yaraada in yar loo baahdana de waa la qaybin karaa laakiin shalayna way ku jireen berina wax mamnuuc ma jiraan ka cabashadoodu waxa leedahay waxba ka soo qaad ma laha ما هو لا دي waxaan ku leeyahay waa bedeli karaa hadii loo baahdo oo dali waayeen hadii midalan tirada marba tira lagu taga marba laba madaxweyne kale sarkiya marba dhowr wasiiriye sarkiya marba guddi sarkaysa marka mar walba xajmiga uu leeyahay waftigu ayay ku xirantay laakiin wax loo diiday horna way qayb gali jireen imkana way qayb gali karaan waxa isla fahmayaan sidee la isu raaci karaa intaas laga wada hadli karaa waxa jiray dibad bax ucud ay qabteen 10kii bishan ay ku jirno waxaan halkan aad joogtay adigu mudaaradka wuxuu akhbaar ma laga soo gaarsiiyay sidee wuxuu dhaceen waxa uu dhaceen waxbay tawdeen xisbiga ucud inay mudaharaad sameeyaan bayda maalintii xuquuqul insaanka ay muxuu ka hadlaan anigu wasiir dakhliga London jooga ayaan habeenkii markii la soo xabaritay dhigayaan baan habeenkan ugu la hadlay inka la yiraahdo Jamaal Ali oo ah musharaxa ucud waxaan weydiiyay oo sheegay inaan mudaharaadkaas aanu fiicnayn maadaama aanu wasaaradda dakhliga aanu ka soo saarnay amar ah inaan la contain garan karin hadii aan lagu kalsoonaan karin sida loo ilaalin karo dhibaato adii jadadkeenu aanu u bislayn nidaamka mudaharaadada waxaan ka codsaday inuu xafiiskooda hadii ay xusayaan maalinta xuquuqul insaanka inay xafiiskooda soo dhaafin oo halkaa wixii ay soranayaan ay isku yiraahdaan xorna ay yihiin
tii baanu iga aqbalay sidii baanu dhacday. hadal cali guray oo maalintaa 10 sheegay oo waxaa jira oranaya xisbiga ucud waxa haddii sidan inagu sii socoto waxaanu samaysan doonaa garab military arrinta iyada ka waran. arrinta in caraysan hadalkii dhe laakiin meeshan military kale lagu ogoliyay militariga Soomaaliland aan ahayn iyo cid samayn kartaa kii kacaankuba saasuun buu oran jiray markii Somaliland qoryaha qaadatay waxaan ku xusuusiyay mudane waxaa jirtay koley waad iga aqoon badan tahay 81kii dhalinyaro is ururisay oo xabashooyinka magaalada ka jira haday dhakhtarka noqon lahayd haday noqon lahayd laydhka oo baqtiyi jiray aad u biyaha adeegyada guud wacyigelinta dadka journal yaro ay qori jireen oo u fal oran jiray baa jiray marka dhalinyarada markay isku yimaadeen ay rabeen inay dadka wacyigeliyaan waati 20 kamid ah la xiray oo xabsi daa'in iyo 30 iyo 20 iyo lagu xukumay sanadood. dhalinyaradii waxay ahaayeen u badnaayeen dhalinyaro reer Hargeysa dhalasho ahaan imikana dadka cabashada qaba oo buuqay oo inta mudaharaadka sameynaya oo golaha laftooda kamid ka ahi waxa muuqanaysa inay isku eg yihiin. muu maleynaysaa dawladda Soomaaliland maanta ka jirta dawladda kulmiye aan idhaahday inay khaladkii tiisiyad bar sameynayso oo dad u istaagay inay dhibaatada jirta ka cawdaan ay doonaysaa inay caburiso. okay aad baad mahadsantahay waa su'aal qiimo leh weey horta waxa weeyaan cali guray wuxuu kamid yahay ragii dalkan soo dagaalamay ufana ragii kamid ka ah ka dhidhiibaa wixii lagu sameeyay cali guray uu garanayay maalinta wuxuu dagaalamay waxay xornimadii 60kii ka luntay inuu soo celiyo cali guray doonay maantana wuxuu dagaalamay uu garanaya oo hadlayo wuxuu doonayaa maantana xabad maanta kama istaahilo waa wixii uu dalkiisa iyo naftiisa u soo horay waa dadka nacas ma hoo inuu dadkiisa hadana dib u laayo tiisi aad baro kala qaato aqligaaba diiday isagana dacayba ku tahay laakiin hadduu uga jeedo uu doonayo war aynu wanaag iyo kalgacal iyo transparency iyo aan wada hadal iyo aan wax isla eegno ra'yigiisa wato ama si cala la haw yiraahdo ama si macaan haw yiraahdee dawladdeedu waxay capability u leedahay ama awood u leedahay sidin kasta uu yiraahdo inaan materials kareeno dib u habeeno isagoo la cuni karayo ama isagoo dib u liqi karayo inaan ku soo celino marka hadalkan dhaadheer waxba idin la fogaan oo haw qaadanina Somaliland niman dib u soo qabsanayeen way garanayeen ragii dagaalamay waxa u dagaalameen kuwa u dagaalameenna ma waxay u dagaalameen in musharaxa madaxweynaha oo dhici karta inuu muddo gaaban gudaheed madaxweynaha Soomaaliland uga noqdo in loo diiday inuu gabilay galo madaxweynaha imika jooga la yiraahdo Axmed Maxamed Silaanyo rasaas baan kala dalan waxaan ahaa rejiimkii horan ku jiray soo taagan baan rasaasaynin ما هن معنون نعمنا مدحوينها سوسة. تستحمل كده جيسا مركز تمام ساعتها. ما خلد مركا أنو أركيني إنه خلدي هاي إن لو تشوشيو لو بقجليو لو عبيو دمشي إنك نامي كل دمي ترتابه مركا وحي جاسو معها وحسير دين معها ما أنت نسيج مدحوينك أنا جيت رسالة كوري ده يبقى حتى نامك وزيروه. السين يعني ما لكن بقجلين توي حلا قد تعلم يعني. ما بقجل معها نظام العلم وي شعب كينو وشعب إن بدن جميس كسو تشري ودجال iyo cunfi u arka iyo yani shaydaan u arka dawladda waa dad dawladihii Soomaaliya soo maray laftooda aanay uga raynin marka marwalba waxay ku jireen dagaal inay la galaan oo isku badbaadiyaan imika waxay baranayaan intan toodii tahay waxaad noo sheegtay maadaama wasiirka arrimaha gudaha ah tahay oo arrintani ku hoos imanayso waxa sababay in Jamaal iyo dadkii la socday cod ka tirsanaa gabilay loo diiday inay galaan runtii horta waan soo maray kan joogay laakiin waxa weeyaan midalan axsaabtu la mid maaha dadka caadiga ah nimankan waa madax marka de shacab la soo saarayna waxay u baahan tahay effort fara badan oo xagga nabadgelyada in la qaado ogtay biyadeena waxa ku xiran marka hadii 100 qof ka badan soo imanaya de dibkeeda yeelan karta marka inay soo ogeysiyaan oo yiraahdaan walaalkaastaan u qabanayna waxyaabaha inkaas mid kale nidaam baan leenahay waxa jirta waqti loo goliyay in olol la sameeyo dadka la kiciyo de wax loo sheego waxa jirta waqti la nasto oo dadka xafiisyada iyo waxa sun loo goliyay in lagu shariyo aan in barnaamijyo dawladda la isugu soo saaro aan la ogolayn marka hadii midalan ay doonayaan inay wax sameeyaan oo wixii marka de macquulka ah midalan xafiisyada la isku arko uu tiri kara ninka gudoomiyaha ama muxuu musharaxay xafiisyada waddanka ku leeyahay cid u diidi kartaa ma jirto laakiin marka waxa wax ka siyaada la sameynayo
وين بوليسكي اللي هول جليا وين قبلدي اللي هول جليا وين إيه dadka naftooda la ilaaliya marka waxyaabaha scenario-da nabadgelyada sida loo ilaalinayo mooyaane waa nin wadani weeye Jamaal Cali Xuseen dalku u dhashay isku mid baan nahay miyaan u diidi karaa anay ma diidi karo isna ma diidi karo waa loo diiday way dhacday teen gabil nidaamka waxa nidaamka soo mara oo soo ogeysiye meeshii aad tegayseen waa cidlo lama ogeyn aad tegaysaan hadda bari dadku isku soo baxaa ama wax dhacay xisbigu dalku ka tirsan yahay gabil ee meelaha laga kamid ahayd xafiis bay ku leeyihiin waa xisbi qaran oo imika doorashada soo socota hadday bay dhacdo ka qayb gali doona imika saaka haduu tago potentially waxa suurtagal ah inuu madaxweyne dalka ka noqdo of course waxaan markaa diidin ma jiraan ma imika saaka haduu tago cid u diidaysa ma jiro haduu weydiisto waxa aan sameeynaa shirkaas aan qabanaa caynkaas booliis halana siiyo television caalami ah oo aan rajaynay in dad badan oo codiyay ku daawanayaan baad ka hadlaysaa hadii Jamaal mar labaad codsado inuu gabilay tago ma u diidaysaan oo soo ogolaanaysaan inuu tago si loo diiday sidii markii hore loogu diiday lama diiday haya laakiin wax ma loo ogoleen isna soo bax balaano maadaama aan urur jirin inay operation ka galaan balladooda kulmiyaan looma ogola oo cidna looma ogola wadana looma ogola waa nidaam aan leenahay mar baa jirta waqti la siiyo lahdo jaantaar rugan oo loo ogol yahay meel walba ka hadlaan oo meel walba ay soo bax ka sameeyaan iyo marar dadku nasanayo horumarintii iyo qarannimadii kale ilaa hadana maalin walba oo ku jirno dadkii goorma loo shaqeynaya marka waxa weeye waxyaabaha mooyaane nobody dalka waniga kula adigo go iyo saadiye saatoon badal markaraysa Faysal Cali Waraabe Hargeysan kala hadlay dhawaan wuxuu ii sheegay in cadaadis badan dawladani ku haysa xisbiyada inaanay u aqoonsanayn inay xisbiye qaran yihiin oo si aan munaasab ahayn loola dhaqmo wuxuu ii sheegay in xitaa lacag xisbiyadu ay miisaaniyada ku lahaayeen marna laga gooyo mar la siiyo mar la yareeyo oo gumaysi lagu hayo dhinaca lacagta ah wuxuu ii sheegay in afqabad lagu hayo oo aanay warbaahinta qaranka telefishinka Soomaaliland qaranka iyo maxaan leeyahay radio Hargeysa intaba isticmaali karin bal arinta hadalka Faysal wax ka maadaama intuu wax ka codayba ay wasaaradda hoose horta ma jeclin adiga ku soo dacwoodanayo soo dacwoodaaba wayana wax ka qaban karaya imkana waan ka qabanaya wuxuu ka dacwoonayay waan wada hadlaynaa wixii tabasha ay sharcigu ogol yahay waa fulinaya arintan idaacadda inaanay ka hadlin iyo telefishinka waxyaabaha aanu ka doonayno ka wada hadalnaa telefishinku wuxuu ku magacaaban yahay telefishin qaran miisaaniyadiisuna waxay ka timaadaa miisaaniyada Soomaaliland hadday deeq Soomaaliland la siiyay iyo hadii lacag cashuur wadanka lagu ururiyay noqon lahayd waa lacag dadka ka dhaxaysa marka in qolo gaari ay ku shaqeysato aalada qaranku leeyahay oo hadday noqon lahayd olole ama hadday warbaahin iyo wacyigelin noqon lahayd intaba asxaabtii siyaasiga ahayd ee qarankana la afqabto arinta bal waan arin muuqato oo inkastoo caalam thalis oo dhan ay arintaas ka socoto dunida saddexaad oo dhibaato ka jirta ay tahay haddana Soomaaliland waxyaalaha xisbiyadu aadka uga cabanayaan bay ka mid tahay marka maxaa waxyaabaha imika aan jecelahay inaan ka wada hadalno oo waxyaabaha ka wada hadlayno waxa kamid ah okay waa idin ogolay bahalkii TV-ga inay isticmaashaan iyo radio-giiba laakiin sidan looga hadla dadka qaarkii uga hadlaan telefishinada yar dadku tun ku sito inay TV-gu ila waa mid qarane wax qiimo leh oo dadka mesela ama ay ku soo jiidan karaan oo waxay naga wanaagsan yihiin ay u sheegi karaan oo ay dadka ku wacyigelin karaan oo ay nabadgelyada wax kaga tari karaan oo ay deganaanshaha wax kaga tari karaan oo ay qabyaalada ku eliminate garan karaan ay kaga saari karaan dadka ayaanu kala dhigaynaa oo ogolaanaynaa anaguna saa intaan leeg laakiin aan wixii xun lala imaan Jamaal intay Soomaaliland jirtay وقيلي حزبها سومدح كاها انت هالقن بو كجري Soomaaliland aqoonsigeeda iyo dawladnimadeeda iyo horumarkeedu ka hadlay Cabdiraxmaan Ciro isna xisbiga kala gudoomiye ka ah waa gudoomiyaha baarlamaanka oo aad ogtahay isna miisaaniyada iyo xajmiga ay jagadaasi leedahay marka waxaad leedahay labadan nin waxaan ka baqaynaa inay caytamaan hadan radio ma labadan ixtiraam naga mudo nimanka laakiin ha codaan laakiin dad baa ku xidhan dadka ku xidhan dad fara badan iyo xisbiga dad fara badan baa ku xidhan qaar mas'uuliin oo xisbiga mas'uuladka iyo qaranka inba marka dadkuna way u sameeyeen qofku in ra'yigiisa sii daayo marka dadkan hadlaya maaha madaxda dadkan hadlaya laftooda iyo xataa qaar madaxda ku jiro dees xun hadlana way jiraan
inaanu inaga noqon TV-ga qaranku aan la mid ah kuwiina kala yaryaraya private kuwii idinka dowladda ka midka ah ee caytama cidi afka ma qabato wakaa wasiirkii warfaafintu lahaa wakaa wasiirkii warfaafintu lahaa xisbiyadu ma shiri karaan wasiir caytama inaad aragana ana kaaga ballan qaaday okay mudan adoo mahadsan waxaa jiray report kale mar kale ay UN ku soo saareen oo UN ka maana waa hay'ado kale malaynaya musuqmaasuqa looga hadlayay Soomaaliya mar kale maadaama labadii dalaan si official loo kala Soomaaliya maadiyadeen Somaliland iyo Soomaaliya maadaama isku meel ku yaalaan labadii dalna aan si official loo kala Neelsbayr waa markaa wax yeelo ma doonayay markaa Soomaaliya iga reebo Soomaaliland weydii musuqmaasuqa waxa la yiri waa halka dhulkaasi waa halka dunida ugu musuqmaasuqa badan arinta balka waran dawladdu waxay ka qabatay dawladdu horta ma khusayso sababtoo ah nimankan waxay daba socdaan cidii ay wax siiyeen anaga waxba namaysi Saudi imka mar dhaweydii gu lahaa dawladda Britain waxay naga caawisaa booliiska iyo Britain ka reeb Britain oran ku sheegay laakiin international caalamkan kale iyo Talyaaniga iyo Talyaaniga dadkii rooni anaga waxba nama siiyo marka waxay daba socdaan wixii ay bixiyeen cidii lumisay marka mar haddii anaga waxba naga soo gaadhin maxay naga soo doonayaan anaga waxa yeelay islaamka ka wadano musuqmaasuq kama jiro كل الدنيا لما أورن كرو حاليا دتر المجال لما يلاقي وحوله سواد كده لكن وحوية ظاهرة دي إنه نحن وح فول حنو تشيرو ما أنت تشيرو قدنا كيجي وحي جوا هذا وحي رانا الإسلام على جور يوي وحنا الدولة ده نبالغوا ده بقولي كنت مليون بانو قوانا بقولي كنت كام مليون بانو ذلك أنت عليك وان إذن وحبسين بانو كودنا بكذا الميل وحلاقة مسقم ماله ويدي ترك لما أعمل كلام بقول كنت لو ما أعمل كلام هدي مسوم أسوق شرو أنا جاب يقوم في اللاتين. أوكي قبيلة ده يذكر. قبيلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلهي باركم ما قال. تمام قبيلة كم شرط؟ تي إلهي بنية ونشأنا يا هات. هاي تقول بدأ تعيشه إنه حكمه مثلا. حقيقين كنبتها دول ككشرة. أنت هذا تكوي عبانية. beesha dhexe waa dhexdeeda kala cabanaysa beelaha darafyada cabanaya arinta bal wax ka dhayadana hore waxa loo yiri tool isagana wax isku qaba waxana kala qaba cabashadu ilaa yawm qiyaamaha way jiraysaa laakiin waajib waxa uu yahay ka dawladahan maadaama madaxu nahay laba arrimood bayaan u ilaalino wadada cadaaladda iyo sinaanta iyo nabadda labada haddaan ku faraadayno وحب عليهم سواء كفر عاديا. أوكي عدالة من دام أتشاكتي. طبعا إلا لبعتن ويقارين لبعتن كتشاقة الصومالي لأن أقول قيمها بدن بيش الدحاها هيست. عدالة ده سوا معي مركا. سير كاريمها دي بدأ. أريمها قده مالية مدحوينه محاني هذا حزبية مدحودي بارلمانك مال والب أقاسمياش airport dekada meel walbo horta runtii anigu waxaan ahay ama dalkayga uu sameeyay yahay inaan cadaalad ku dhaqmo oo cadaalad darro waan soo aray waxay naga soo gaareen markaan Soomaaliya ku darsanay dhexdeedana cadaalad darro isku sameynaa waa ayaan dar waan khalad ma dhici karto laakiin duruufo iman kara duruufaas waxa weeye dalka doorasho ka dhacda aan qabiilad ku saleysnay ma laga yaabaa shan inoo isku reera beelkasta ka soo jeedin inay doorashooyinka ugu waaweyn ka soo baxaan waxaan garanayaa sida imka aad ku shaqadeyn kastoo aan waan jeclayn haddana beelaha qaarkood oo kuwa dhaxaan ahayn inay mararka qaarkood dhacdo in madaxweynaha la yeesho in maxkamadda sare la yeesho in muxuu ahaay saddexdii qaybood laba qaybood halka marto haddana si kasta iyadoo hadda ahayn xaqdaro loo baray haddana way si kasta sida kale loo dhici kartaa oo beelka haddana badsato laakiin bal mustaqbalka waxaan isku dayi karnaa inaan mar walba wax uniform laakiin ma qirsanid in miisaan meeshan waxay jirtay qolo kale u badneed maanta in qolo kale u badantay aniga miisaan qoyskayga oo kale reerkayga miisaan saddex qaybood buu qaybsamaa beesha dhexe ma waxaan ka hadlayaa yani sida wax u dhici karaan anigu beeshan ka tirsanahay saddex bay u qaybsantaa saddexdaa reer marba mid wuxuu isku qaataa baarlamaanka iyo guurtida iyo wasiirnimada
mulkila haysta kuwa kale ma yidhaahdaan warde waa sidee haddana mid kale u wareegtaa waayo waxay ku yimaadaan ama shakhsiyad qof bay ku yimaadaan ama doorasho ku yimaadaan marka waxayagu maaha wax lagu talagalay in qolana la dhuumanad gareeyo qolana laga dhaco qolana ay wax bursata maaha nidaamkaasaa marmar dhici kara laakiin waxaa runtii anigu aan qabaabay asalkeedaba si aanay miisaankaas marba gees ugu wareegin in siyaabo baaralaho wax loo ama sinaanaho wax loo qaybsan karaa inay jirto taana waa lagu heshiin karaa laakiin kulliba anagu niman u bareeray inaanu isdhacno sidii annaga lanoo dhacay ma nihin okay waxaad ka mid ahaan jirtay xisbigii udub waa kii burburay waxyaalihii burburiyeyna waxaa ka mid ahay inaad adigu damacday inaad madaxweyne noqoto ood xisbiga madax ka noqoto miyaan xaq u lahayn waad u leedahay markuu kuu hirgeli weysay adigii wadani ku biiray miyaan xaq u lahayn xaq baad u leedahay haddana adigii soo noqday imika kulmiye ku biiray miyaan xaq u lahayn waad u leedahay hankaagii madaxweynenimo maxaa ku dhacay wallaahi bal waan runtii ma jecel inaan ka hadho madaxweynenimada haye laakiin dee hadduu albaabka kugu xidhmo inaad furow doonto soo maha waa laga yaabaa inaanan ka hadhin madaxweynenimada laan maxaa waan higsanaya laakiin dee mar walba siday kugu muuqataa baad u soconaysaa yani maxaa jeeda waxaad u tallaabsataa addi qadamaga addi muxuu ahaa intaad tallaabsan karto bala tallaabsadaa laakiin anigu waxaan ku niyad samahay mar kasta ummadayda iyo shacbigayga iyo qarankayga intaa iga dhegeyso inaan mar walba meesha aan isleeyahay waad ku tallaabsan kartaa inaan uga shaqeeyo maaha macnaheedu inaan sugo uun inta aan madaxweyne laygu soo qaadayo beled dahaba inaan usii shaqeeyaa baan jeclahay oo dadka usii shaqeeyo oo aan waktiga uga lumin waxaa dhacday ninka imika kulmiye madaxda ka ah in uu wasiirnimo diiday isagoo ka biyadiidsan in wasiirnimadaasi ay madaxweynenimada ama guddoomiyenimada xisbiga dhaafiso adigu markaad wasiirnimada qaadatay dad baa aaminay inaad ama isyiri inaad ka tanasushay hankaagii madaxweynenimo arrintaa ka waran iyada haddii ay noqoto inaan tartamo muxuu ahay u dayn maayo musabixina u dayn maayo muxuu ahay xisbigu joogayna u dayn maayo meel kalena kalena u dayn maayo waxa weeyaan oo xisbiga la haystane waxa weeyaan markay muuqato inaan geli karo waan geliya wasiirnimaduna kaa mamnuuci mayso waktiga doorashooyinku joogaan inaad dee doorashada gasho laakiin wasiirnimada waxa weeyaan waa mas-uuliyad ballaaran oo dalkao dhan xisbi kasta qofku ahaadee uu dhex u yahado dee shacabkiisii wada yihiinoo in cadaaladooda iyo sinaantooda inuu ilaaliyo marka wax kas ka khuseeya maaha laakiin maanta anigu dee aan doono inaan madaxweyne u caro dee shaqadan ummadda hayada waan dhigaya ila dadka dhex markaa u noqon maayo koox baan raacayaa marka waxa weeyaan maaha wasiirnimadu inaad ku waayi karto xaqaad leedahay maaha okay maadaama kulmiye imikays hayo oo madaxnimadiisa tartan loogu jiro tartankaa ma ku jirtaa mase damacsantahay inaad ka qayb gasho maya imika waxa weeyaan waa guddoomiye waxaa loo tartamayaa guddoomiyahana kuma jiro dee nin baa haysto oo loo daayey marka aniguna nin ku qordinaya imika guddoomiyenimada miye dee guddoomiyenimada maan ahayn meesha loo socdo oo madaxweynuhu macnaheedu maaha in guddoomiye madaxweyne noqonayo wasiirkaa noqonayo ninka suuqa joogay xisbiga kamida baa noqon karo waa tartan muxuu ahay banaan oo dimuqraadi waxaad ka warantaa shirweynihii kulmiye ee lagu balansanaa 25 bishan la qabto maxaa ka qabsoomay maxaase aad isleedahay way ka qabsoomi doonaan wallahi halkaa wax dhibo ka jiro ogahay ma jirto arrintaas ismuuse u socotaa xisbiguna wuu qabsanayaa wixiisii waanu hawshiisina wuu wadanaya xisbina laakiin wax dhibaato ka jira ma jiraan buuqii ka jiray shirka qabanqaabadiisa iyo uu iska dhamaaday kaas waa laga gudbay okay waxaa jira libaaxyo aad aqalkaaga ku haysato oo mid ka mid bari baxsaday oo inan yar dilay oo aad adiga laftaada dishay sida la sheegay bal ka war arrinta adigii wasiirka ah haddii wax dadka khatar gelinaya aad aqalka horta dadka ay u soo kicinay litarawa maamarade dadrawati in mihil dadkii ay ka dhimatay aad soo xasuusiso diyaar miyaanay fidmo lafteedu ahayn laakiin libaaxyo leey ugu jiraan mana jeclay dadka cunaa
laakiin inaad meel caasimada oo magaalo oo sidaad aragtay dadku ku yahay inaad ku dhaxayso haddana ammaanka imika mid baa baxsaday baa la yidhi ma la helay kii baxsaday kii labaad waliba beenta waa ogaataan runta maxaa u ogaan weyday waan la yaabana hadda waxa wanaagsan la sheegi maayo inta xun waliba beena ama 100% beentaba ayaa ka xalada libaaxi dambe ma baxsan labadii waday uu joogaa si barigaas exniga soo dhacay waan aad baan u ilaaliyaa laakiin bahalo waa bahalo xoog weyn runtii wadnahan farta ku hayaado waxaan ka baqanayaa in haddii mar dambe soo baxaan waa mushkil laakiin waxaan doonayaa inaan suu qaran ku leeyahay muxuu ahay waayo waxaan waa mas'uuliyadooda qaranka isaga wareejisa asad umadu leedahay weeye marka inay dayacmaan loo baahna laakiin inuu si umaduhu u manage karayaan suu laga dhigo la ururiyo waliba dilibaax oo kale Soomaalidu ka dabargo'aya todobada xabeen hayaaba ka jooga marka in iyagana la dhaqaaleeyo dadkuna caruurta jiilalka soo soconay wax ku bartaan oo hataa tacliin ahaan bay u baran karaan libaax waa nooc sawirada ku arkaan laakiin markay isagoo soconaya arkaan waa wax kale tacliin bay waanaysaa recreation activities bay waanaysaa dee maaweela marka runtii waa waxaynu u baahannahay marka waxaan jiray Hargeysa Zoo inaan dhaqaale xun baa haysan mooyaane inaan la kaashado dawladda iyo hay'adaha intaba ugu dambeyntii waxaa jirta mudane report bari dhaxdaas xirsi oo baarlamaanka hortiisa ka akhriyay wasaaradihii oo dhan buu ka wada hadlay dadka qaar moodayeen inuu afka codka madaxweynaha ku hadlayay waxay riboodadii uu warbixinadii uu ka hadlay waxa kamid ahaa qaar badan oo shaqadaada hoos imanayay miyaad isku ogeydeen inuu shaqadaada baarlamaanka kala hadlo mise isagun baa marorsaday haddii la weydiiyo inuu ka jawaabo waan isku ogey ila waa mas'uul madaxtooyadana uu joogaa waana wasiir shaqada muxuu ahaay qaranka marna wasiirka leh marna qaranka wada leeyahay wasiirada marka mararkay inkaan maanta wasiir baan ahay wasiirka dakhliga waxaan kala hadlayay waxaan shaqada khuseen oo kamid ah qodista shidaalka iyo siyaasadda guud ee laga aanu kala dhaqmayno Ingiriiska iyo wadamada kale ma it's not my business laakiin baarlamaan lama hadlayn laakiin dhageyso laakiin marka aan aad weydiiso de sirtii baan ugu ku sheegay waxaan ka ogahay meelaha sama hadda inaan ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisa laakiin wuxuu wada waan ku sheegi karaa ka waxa leedahay in xirsi kolaha wakiilada waan wada leenahay inuu ninka wasiirka marka meel wax laga weydiiyo qaran buu matala haddii su'aal la weydiiyo inuu ka jawaabi karo haddii kale waxa ma aha qofka mid kale isagu waa ka sayay isagu madaxtooyada madaxweynuhu kaaliyo yahay marka aniga iyo isaguba xaq baan u leenahay in dad madaxtooyada waxay weydiisay waan ku sheegay korma iyo xirsi baa ku shaqaday okay maadaama dalbatayna madaxtooyada wax ka weydiiyo waxa jirta in hawlo badan oo madaxtooyada aan hoos iman jirin madaxtooyadan kulmiye la hoos geeyay oo haamaha shidaalku kamid yihiin wadooyinku kamid yahay cashuuraadka baabuurta kamid jireen maxaa laga la doonay meetii kuwii kayga hore way hoos iman dawladdeedu way hoos iman kulmiye uu ka caban jiray bariga wallahi hadii wanaagsan oo qofku arko inay sidan ba ku badanayso inay horumarkeeda iyo wanaageedu ku jiro inuu halka u sareeyo hoos yimaado hay'ado badan baa adduunyada way jirtaa waxa madax banaan oo dhan waxay hoos yimaadaan madaxtooyada waana nidaam caalami wey waxudidiyana ma jiro aad baad mahadsantahay Thank you very much.